بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ما أنت وهلكم وحن كبرنا عشر كأني قيبت اللبعض SQL injection. سيدا لو inject جرايا أما لو دورو SQL injection أم database ka username and password ka سيدا لو قاعد الله جبسده website يدا software database ka kala duwan. marka waxaan isticmaalaynaa database sidii database ka loo inject gareynayo oo loo helo username iyo password ka qofka leeyahay website qofka uu shaqeynaya username iyo password ka helaysa wixii kale waa inoo dhiman yihiin ogaanina. hadda maanta waxaan ku baaraynaa marka searching waa sidii lagu raadiyaa PHP variable ka soo ah ama nugul website ka nugul sidii loo ogaadaa ee la jabsan kara ama database kiisa kuwa kamid way adag yihiin kuwana waa nugul yihiin. hadda waxaan baaraynaa kuwa nugul sidii loo ogaado. waan isticmaalaynaa PHP wada aragtaan PHP calaamadii oo exclamation mark en calaamadii question mark ahead ID equal 1 waa wuxuu PHP ay lahayd waa isla fiirinayna marka ID la magacaabayo PHP waxaan leenahay bal noogu dhufo waxaana click si aan u raadino waxaan raadinaynaa marka wax dabacsan haddii laga soo helo intaan oo iswadato wuxuu noqonayaa variable mid dabacsan aan jilicsan nugul intaan haddii laga soo helo waa website nugul. hadda waxaa leeyahay ID equal 1 ee malahan PHP kuma soo dhaxay. waxaan isla eegaynaa hoos mooda lahaan fiicili waxaa kaloo lagu ogaadaa waxaan leenahay hadda kanoo kale ID waaye midkaan mid nugul maaha waa mid adag oo hadda website hore laga jebin kara maahan laakiin sidii lagu ogaadaa inuu nugul yahay website-kan fiirina waxaa la sameynaa single quota halkaas oo laga saaraa single quota calaamada single quota-ga akala gelina marka dhig la siiyo waxaa laga inuu ku yiraahdo syntax error for SQL and SQL injection. hadda kan hore kama soo dhaxay meeshuu ku leeyahay HTML iyo PHP ku leeyahay waa ka soo diiday. waxaan fiirinaynaa marka mid sidiisoo kale leh aan hore fiirino error soo eegnay sidaan u eegno balloon malahan waa kaas single quota calaamadan saarnay waa ka soo diiday. aan fiirina marka midka nugulaan isla tagaynaa intaan mooda nuglo kan waa PHP iskale waxaan tagaynaa website caadi ah nugulaan fiirinaynaa marka waxaan fiirinaynaa kana hadda iskale ma aragtaa midkaan oo ku qorantay contemporary Romanian writers kaasaan isla fiirinaynaa marka contemporary wuxuu leeyahay calaamadii uu ku nuglaa uu kusoo tilmaamayo wada aragtaa in nugul inuu jilicsan yahay website la weerari kara. waa isla ogaanaynaa marka in nugul yahay wax lagu ogaada single quota halkaas dhaka siinayna. haddii single quota loo diro wuxuu ku leeyahay syntax error wuxuu ku soo markiiba inuusan aqoon database wuxuu leeyahay waa error fajari started page you can error your SQL syntax check the manual the corresponding to your MySQL server version of the right syntax to near one. وكاسو ديدا marka calaamada saan oo kale ah haduu keeno waa nugul yahay database wala ogaan kara. waxaan leenahay marka inoo soo copy gray
oo copy gareysanayna copy noo soo oo soo xirkan asleegina sida isticmaalayo maadaama waxaan anaga hadda maanta u socono waxa waaye sida username website uu leeyahay iyo passwordkiisa looga ogaada database-ka iyadoo la inject gareyna ama la durayo ama hacking lagu sameeyay hacking database-ka loo sameeyay asla ogaanaya oo iyadoo la isticmaalayo SQL map oo aan leenahay SQL map underscore hyphen waa the waxa lagu soo gaabiyo waa uniform resource locator oo URL oo ku soo gaaban yahay waxaan leenahay past waxaan ku soo koobi gareyn website-ka oo linkiga ahaa inta nagu baas garay waxaan leenahay marka hyphen DBMS ama SMS-ka wata waa database system haddii aan internet shaqo wadanaya waa wadaya waxaan soo duubaya wada waarta waa discrimination describe automatically horuna oo keen marka waxaan uga baahneen waxa waaye labadaan uga baahneen maadaama waxaan uga maqan mid saacad oo userka www ku soo galay account bixinad meesha soo muuqanad kama soo muuqan waxaan qaadanaynaa marka roman waxa ku jiro waa table contact inta ku jiro oo markaan fiirino romankan waa table contact marka waxaan leenahay oo koron laabanaya intaan xagga stagin horiga keenay saan iyadoo ay soo koobigree ilaa waxaan rabaa inaan isticmaalo waxaan rabnaa inaan ogaano marka tableskan uu leeyahay maadaama labadaan la isticmaalayo waa information system iyo roman SVC oo ah contact table-ka wax ku jiro contact table-ka waxaan leenahay SD database ah waxaad noo soo qabataa noo soo koobigree romankan waxaan ogaanaynaa wax tablekaas kusoo dhex jiro tablekaan rabaa inaan ogaano minus table aan leenahay marka waa minus tables intana isla egno waxaan kaloo ilaa waa sugaynaa intay qaadan doonto ma sheegi karna marka waa duritaankii sida SQL database-ka loo ogaado hadda wuxuu noo keenayaa table-kii marka waa isla eegaynaa oo server waa operating system Linux Ubuntu Apache PHP 5.5 application technology Apache 2.4.7 PHP 5.5 9 again DBMS database management system MySQL retrieve sida loo soo helo waa retrieve sida loo helo markaan isla eegno waa imaanaya waxaan hadda inta ku qoran dhan waxa waaye waxyaalaha hadda la soo helay waa wax ku qoran hadda table contact nagu imaan doono wuxuu soo helayaa xogay soo helayaa table ku jiray waa sugayna wax yar Authority Carty agar luqadan ma aqaan authority Soomaaliya ay waxay kaga hadleen heshiiskii dhawaan Nairobi ku kala
النص هذا وزوينه وحر النص هذا مركز تيبل كنت تقول نص طحية ونيوز كونتاكتي واحدا بي دي اف waxa ay ku jiraan author waa table contacti adu table marka noo keenaya waxa yaraan suuqina marka this is a connection problem hada waa kana marka noo keenay ma fiirina markan koran fiirina markan table kan kala ku jira fiirina lin table ka waxa ku jiro noo sheegay waa news picture and news and contacti pdf critical status static figures waxyaalo inuu sheegaya midkaan fiirinaa marka laara marka midka horan fiirinayna oo waxaan leenahay kaasan ku bidhaanayna laakiin maxaa nooga horeyn doono marka hore waa inaan la imaanaa marka waxaan leenahay intaan dhamano qaad saan ku qaadanaynaa table-kaas kaliya bisan ka tegaynaa table-kan booskiisa wax kale ku bedelanaynaa ma baanin intaan dhan ma qaadanayno dib u celi meesha qaladaan iga soo galay diyan la intaas kaliya qaad ده waxaan rabaa inaan qaataa jirto lee waxaan rabaa inaan column-kaas wax ka dhex ogaadaan rabaa dimiyo waxaan leeyahay midkan kale bal author-ka iyo isla fiirino ilaa wax kala fiirin kara copy-da author st marka author-ka intaan ma dhihin wax baan hilmaamay ayar markaan kusoo tagay waa xagga meesha horta magacaabista koowaad ilaa marka hore akin ka nimid qadaraan galay aan dib ugu laabtaa habakana meel ariga ma jiro copy soo dheh صديق إذا ما كان أقصد تجي سقال دنوس تجي مركز على تي أو تايبل كان كارلنا مركز على تايبل كان يأخذ جله آخر كان مركز كوبي صدق past على مركز كلا كلا تريدون أمر قطع أنا أمر قطع صو صار بحماشة كجور farjari ayar yar uu soo sheegaya database-ka meeshu ka samaysnaa inuu soo sheegay qoro in farjar yahay in text yahay muxuu ku samaysnaa waa farjar autoborti biography brief haddii uu inoo igu jiro meeshan username hadduu yahay username qaadan lahayn waxaan leeyahay username-ka noo soo sheeg
أو صوم مجنين آخر القول حسن فيرنا اللهم صل على ما تزيفون وصلى الله على سيدنا حسن لا يقنو حسن فيرنا خير تابركم باني أنسوكم بكريسانينا سيدي تانسوكم بكريسانيا كان باست كله مرك أيضا باست يتاعي حلا هاي ماينس سي كابيتال waxaan soo qaadanaya marka column-kan wixii ku dhex jiray waxaan isticmaalaa brief isticmaalaa madooda isticmaalaa paragraph isticmaalaa brief isticmaalaa isla fiirin briefkan asaga waxa ku dhex jira isla eegaynaa briefkan maadaama briefkan baan isla eegno halay past halkaasaan past ku yiri minus down isleeg marka wixii soo baxaya sida soo baxaya database-ka hadda username-ka aanan muuqanin markuu ku muuqdaa la sheegi karaa marka hadii uu soo muuqda laakiin waxaan gaanaynaa database-ka duritaankiisa iyo xogta ku dhex jirta sidii loo ogaado marka xogta ku dhex jirta aan ogaanaynaa saas oo kale aan username-ki password-ka loo ogaadaa retrieve ولا فرتني أفر entries نسوينا مدبب حير وعدو ديرانا حير وقت ديرا هي قادنا يسي مركا أنت بدل retrieve سؤال لنا يا نتك وحير مركا ودي يا بين كوركا مثلا username وسن password وسن هن وتكست أدخل بدن هي صوب بنجست وقت اللي قادنا يسي waxaana gudaheeda ka buuxa waad aragtaa grafka waxaan kusoo bandhigay previewga oo paragraphku leeyahay gudaheeda marka sidaana loo ogaadaa passwordka hadda hor kasoo saari lahaa password username password haduu hor kasoo muujin lahaa waxay raadeen daba dheer waxaa jirta text aad u dheer meesha ku jira marka saas taradada u diidan yahay password username haduu hor kasoo saari lahaa marka maanta halkaan uu ekaanaya saan loo diraa web SQL injection haddaad procedure-kan u marto
markiiba passwordka usernameka hore ka heleysaa hadduu yahay vulnerable mid nugul hadduu yahay. sala allahu wasalam calaa sayidina maxamed wa alihi wasaxbi wasalam. janaalka Ganani Technology subscribe hala saaro, like, share, comment intaba loogu dadaalo asxaabta daawanaysa videogan.